موسى سؤال كلن كويديني وحويان موسى أنا هذا وحيد دب يقول لابتها بينك مايركا حفيز كثير لفردية صومالي ودوديين تقارن اسمه كان حقنا هذا الكسوتوري مثل حقك كسوتوري يسيدي نظام دردي ماشي كسعتي دوشدي ما لديه كرا waxa ugu badan ee ku dhaliyay inaad ururkan saas ka dhigtaan ama dhalisaan ujeedada ugu weyn ugu dhalisayba in loo baahan yahay cod Soomaaliyeed inuu jiro ayay bahaydba habeenka waan joogay meeshan waxaan u tagay inaan codkayga ka dhiibto laakiin ayaan darra ayaa waxay noqotay markii 30 qof dhowr 20 qof oo Soomaali ah meesha ku dhigay ay hal cod ku hadlin oo nin walba goonidiisa u hadlo wax la isku soo ogaa uusan jirin habeenka waxaan la joogay mayorka la joogay ninka commissionerka xukuumadda Ingiriiska commissionerka kale Amanda Fritz la joogtay laakiin wax cod oo midaysan ma uusan jirin inkastoo arrimaha laga hadlay ee Soomaali kuseysay haddana dad kale oo dana gooni ah wato ayaa meesha ka hadlay wax Soomaali midaysan laga hadlay ma uusan jirin taa ayaan ugu weynayd wax ugu weyn ugu dhaliyay in loo baahan yahay cod Soomaali inuu jiro kaligeena ma ahan dad badan oo Soomaali habeenka joogay ayaa ra'yigaas la yimid in la sameeyo laakiin meeshaas ayaan kaga tagay habeenkaas codkayga aan ka dhiibay sababtoo ah waxaan noqonay umad jirta meesha buuxda laakiin aan cod midaysan lahayn tan la xiriirda xiriirka dawladda la soo sameeyeen markaan aan iyada Fox Greenan baan yarahay ka hadalno ma la oran karaa tan naftirkeeda waxay ahayd guul kale oo lagu aqoonsaday Soomaalidii oo mar kale cod midaysan yeelatay oo dawladdu ay markan iska eegisaan bay arkayso inay danahooda sheegan doonaan amba baahidooda cadeyn doonaan in dawladdu la soo xiriirto xiriirka oo reesiri iyo Portland ka yimaado inaan Beaverton la xiriirno inay federaalka la soo xiriiraan inay booliska Portland la soo xiriiraan waa waxa ugu weyn ku gaar ku liibaanay ururkan sababtoo maanta haddaan Soomaalina waxaan yeelnay waji iyo meel loogu soo hagaago oo awal aan lahayn oo dad kala daadsan baan ahayn oo qof walba goonidiisa loo hadli karo laakiin imaanshaha dawladda nala soo xiriirtay ayaa anaga inoo ah inaan guul gaarnayba oo markaa ka dhigaysa in naftirkooda ay eegayaan Soomaalida markan baraarugtay oo xaqoodii doonay taas waa mid ugu weyn intaas oo sano Soomaalida u horeysay magaaladan waxay soo degtay oo markuu dagaalkii sokeeyo u dhacay 20 sano u dambeysay dad Soomaali ayaa magaaladan deganaa oo imaan jiray laakiin dad kale oo xaafadiisa degan oo dantiisa u raacday ayaan noqonay community waa la isku dayin la hagaajin isku sameeyay eedkan ugu horeysay in la isku dayin sameeyo hal maalin ka badan shirki ka badan isugu soo noqon heeda kala duwinta kala way jiraan laakiin cod dawladda oo midaysan oo meel loogu soo haagalay si wanaag maanta ayaan ugu horeysay inaan maadaama ururkan sameeyay ku guuleysanay موسى waxaa jiray markii xiriirka dawladda idinla sameeyeen baan dawladda xiriirka idinka ka dhaxeeyay ka hadalno waxaa jiray qolyaha meel mariya sharciga amba awoodda loo yaqaan booliiskan libsnayn ay idin la soo xiriireen amba ay idin siiyeen abaalmarin gaar ahaan adiga arintaas oo dad badan ay si xun u fasireen amba ay sawir xun ka bixiyeen arinta ayada sideed u dhigi lahayd qaar kale la socon dad damacdeen aad u sharaxad ujeedada sida ugu weyn oo hay'adda ugu weyn ee dawladda federaalka nala soo xiriirtay waa aqoonsatay wanaaga aan sameynay hay'addaas ujeedadeedu ugu weyn ee wadankan loo asaasay waa nabadgelyada wadanka innagii haddii aan noqono ummad midaysan oo meel ka soo wada jeesto oo dhibka lagu qabo ama ay keeni karaan meel laga xiriir yeeshay taas iyaga hawshoodii baan u sahlay hadaan Soomaali nahayna ama binaadamada sidiisaba wanaaga qof baa mar walba xumaan ka sheegay taana qofkii xumaan ka sheegay ama wax wanaaga xumaan ka sheegayna isaga Ilaahay sababtiisa waxaan aniga Muuse ahaan ama qof ama urur ahaan uga hadli karo ma aha laakiin wanaageena waa sii wadayna ummadda Soomaaliyeed inaan bilicdeeda iyo sharafteena kor u sii qaadnaa waa waxaan ku sii raajiyno waana wax aan ugu talagalnay inaga kaliya ma aha ilmaha meeshan ku dhashay ku koray inay la wareego doonaan bari ka maalin oo yeeshaan urur diyaar u ah Soomaaliyeed oo cod leh oo la qiimeeyo
waana hay'adaas waxay nagu aqoonsadeen waa wanaagga aan u keenay ummaddeena maaha wax gooni ahaan qof loogu aqoonsada ama qof lagu sharfaayo keliya maaha waa ummaddii wanaag u soo hoyday sababtoo aniga community-ga Soomaalida ayaan ka mid ahay maadaama wanaag aan sameynay ayaan sharafteedina aan ku helnay marka habeenka maalinta abaalmarinta lagu siiyay waxay ka dhignayd mid Soomaalida oo dhan la siiyay ma waxdi gooni ku ah wax gooni maaha hadalka aan ku hadlay ku qoran journalka lagu soo qoray waa mid aan la qaybsanayo wanaagga ummadooda sababtoo ah meesha waxaa taag lagu soo qoray hadalka ugu weyn lagu soo qoray qof Soomaali ah ayaa abaalmarin la siiyay intaan magaciisa la sheegay waxa ku qoran qof Soomaali ah ayaa abaalmarin la siiyay taa ayaa mid walbana ka weyn mid goonida ee qofka loo qiimeynayo inay ummadii sharaftan u soo hoyatay waxaan loo istaagayna ummadda inay tahay waana wax aad iyo aad guul weyn Ilaahay uu noo sahlay inaan ku guuleyso muddo hal sano gudaheed inaan ku helno abaalmarinta noocaas oo kale sida ay ka warqabtaan ama haddaan la soconba sanadkii la soo dhaafay waxaa la siiyay gudoomiyaha irko Mr. Socom ayaa la siiyay sanadkii dadkii qaato ku jiray waxaa ku jira ciyaaryahanka caanka ah NBA player ayaa ku jira rag la siiyay sanadkii la soo dhaafay waa hawl u baahan in qofkii markuu shaqo fiican qabto maadaama ay tahay hay'adii ka mas'uulka ahayd nabadgelyada waddanka ay ku qiimeynayaan qofka ma aha wax qofka lagu leeyahay wax gooni looga leeyahay ama dan gooni loogu siinayo ma aha waana qof la soo ogyahay wax uu sameynay ama ururkaas waxa ay sameynayaan inay yihiin wax wanaag marka Muuse olol ma la oran karaa maadaama waqti yar aad hawshan hayseen 12 bilood madaheerka gaarteen ma la oran karaa waxaad حاولي بدن بعد كسرتين صادو قرتان ماشى دوني سان مسوي كذا سنة دي كوايت وحكينا يدد ومدي بدياره أوركان الواهر الصمي يكوها بونا له لكن النبي باكسر حني أما كوي ودن كهرو جودي هذا أما كوي ودن كذلك من هذا النبي باكسر حني دن تاني قاري ينور بكوسي كذي ما دام أمد مقالة دقن عن هاي أو ساحتي أو هناك عن قصة من المدة الكوبن أيها وحين قتل وح لو قاعدة لوين هذه ولا قفلين ومدة إني قاتو وأنا صارنا قصة قاعدة يا كوميونتي اللي قاعدة بودنيس كده يجي لما الله وصلنا أي ودن تنجوان مدرسة بالليل مقدريه عد هذا ودولتي قراه هي كسر السكر أي سمسة لو أتنصنوا هي نوقعتي أنا سمسة Soomaaliyeed oo codka Soomaaliyeed matala marka taaddarteed ayaa waxay noqotay muddadii gaaban aan ku gaarnay ummadii oo u bislaatay maanta si wanaag u bislaatay inay wada shaqeeyaan inay ogaadaan maalinkii in kulli in Soomaaliya la wada yahay in dibka gaar hal qof oo anaga inaga mid ah Soomaali inuu qof walba u sameeyo sababta wadankan markaan joogno ninkan baa gobolka Skiimid ninkan baa Burca Kiimid ninkan baa Boosas Kiimid ninkan baa Beledweyne Kiimid ninkan baa Buulabert Kiimid qof dhahay ma jiray kulli Soomaali ayaa nahay dad madow midabkooda madow ayaa nahay taas dibka gaar ama gabadha yar ama odayga waa dib anaga dhan soo wada gaaray oo Soomaali ahaan lama oranayo ninkaas baa yiri ama qofkaas baa saas sameeyay ee waxa la qof Soomaali ah sameeyay taas waa marka abaalmarinta la bixinayay loo yiri qof Soomaali ah abaalmarin la siiyay lama oran hebel iyo meesha ku yimid iyo meesha ku soo jeeday marka taas inaan fahamno waa u baahanahay Muuse waxa kale oo iyadna la isooran karaa muumalaysa cudurkan baasay Soomaalida dilooday bahdilay qabyaalada ma la oran karaa adinku waa ka badbaadeen afartii kiibaday bad mise iyadna qaybin baad ka tihiin taas markaan ururkan aan bilawnay aniga aan madaxa ka ahay dadkii gula taliyay waxay ahayd in afari barti loo qaybiyo waana arrimaha ugu waaweyn ee ka soo horjeestay inaan afar bar loo qaybin in qof Soomaaliyeed ee magaalada sharaf ku leh oo luqadan wadankan yaqaan oo dhaqankan wadankan yaqaan oo ummadii batali kara markuu xafiis garaaco ama hala kulma bariis hala kulma ama hala kulma meeyr hala kulma qof la kulmay qof qada dhicin kara oo xaqi ummadda luqad uu ku deeqsiyo qaba taas ayaan doorbiday inaan ku doorto qofka intaan u tixraaci lahaa qabiil hebel kiimid ama hebel kiimid sababtoo ah waxaan
ugu jawaabay 450 wax ku dhow ayaa xamar fadhiyo baarlamaan lagu soo qaybiyay 4 bar horumar weyn ay gaaraan la taaban karana ma jiro magaaladii caasimadda xitaa gacanta kuma hayaan taas ayaan u diiday nasiib wanaag taas ayaan maadaama taas aan ka lug baxnay oo Soomaalinimo iyo wanaag iyo karti aan ku soo dooranay ayaan noo suurtagelisay inaan heerkan gaarno maanta waa ilaahay mahadiis maxaad marka su'aasha ugu dambaysa maxaad filaysaan mustaqbalka rajo nooceeba idiin muuqato markaad iminka eegtaan qaabkaad u socotaan habkaad hawsha wadaan dadaalkan 12 bilood gudahood ku gaadheen oo runtii wax aad cajiib u ah maxaad filaysaan mustaqbalka inaan ka sii wanaano inaan Soomaalida intii aan codkeena gaarin ama gacantooda aan weli soo qaban inaynu soo geerin intaan wada haysano waa intaan ka awood badan intuu hal qof oo Soomaali laga maqan yahay waa inta awooddeena sii yaraanayso si aan awooddeena u sii badato waxay ku xirnaanaysaa inaan naga dhan aan isku soo xirnaano qof walba codkeena uu gaaro qof walba oo dhibaato qaba ama dhib uu kala kulmay hay'adaha dowladda inuu haysto meel maanta Soomaali oo darbi u ah uu soo xiriiri karo taas way meesha ku socono laakiin ururkan ujeedada aan ka leenahay ma aha maanta sanadkan iyo sanadkooda ma aha waa mid dhallaanka ciyaalka innaga aan dhalnay intuu qoraayo ee beri kamaan dhaxli doonaan oo yeelan doonaan meel loogu soo hagaagay iyo urur ay ku kalsoon yihiin Soomaalinimadooda iyo dhaqankooda ay kasoo jeedaan waana dhici kartaa markaa inaad fikraddan aad u gudbisaan istiyada kale iyo meelaha kale markaa Soomaalidu kala daadsanayaan badalka kale taa waxaana nagula taliyayba noo yimid sanadkan soo dhaafay September 19 iyo jaalanay maalinka noo imaanay oo ah la taliyaha madaxweynaha Obama oo xagga siyaasadda kala taliya ninkaas ayaa nagula taliyay in ururkan oo kale loo gudbiyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu ay ku badan tahay in talada aan la qaybsano aad ayuu nagula taliyay insha Allah markaan awoodeeda gaarno waa jeclaan lahayn in magaalo kasta oo Soomaali ah laga sameeyo urur noocaas oo kale ah sababtoo markaan cod yeelano iyo midnimo yeelano ayaan qiimo yeelano walaal aad baad mahadsantahay السلام عليكم